هيك كل الشوي كرو علي وحدالو صومالي كرو كل ما هيك كل الشوي كرو بلدان كرفيو إنام كارو فاشدو قدافوين دعيو وياها قردات شو وقتي قاقنا لدي أنا وحان قديايو متكان سو قدينايو كوني إسو تاقاني وقوان ددوينو كيس لاقا مراجرين بلدان كرفيو إنام كارو فاشدو قدافوين دعيو وياها قردات شو وقتي قاقنا لدي أنا وحان قديايو متكان سو قدينايو كوني إسو تاقاني وقوان ددوينو كيس لاقا مراجرين علي وحدالو صومالي كرو كل ما هيك كل الشوي. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي بقى محضه maanta halkan isku keenay dhammaanteen mahadda labaad waxa le madaxweynaha Djibouti iyo shacabka Djibouti iyo dalka Djibouti oo soddonkii sanadood ee Soomaali burbursanayd inta la daba joogay aqli waxtar iyo dareenka walaaltinimo soddonkaas sano tanati un bay ka mid tahay ilaahay baa ka jazaaysiin doona inagii shirkeena maanta qof walba af Soomaali ku hadlaaba meel kasta ha jooga shirka lug buu ku leeyahay professor geelchire mid beer qodaya mid dooni saaran qof walba waa faalaynaya shirka waliina soo eegaya waxa la naga rabaa wax dhibaatadii jirtay wax ka xallin kara inaynu ka gaadho aragti way kala duwan yihiin laakiin halkan waxa la isugu yeedhay halkan loo yimid dad khilaafsan oo kala fog in ay gaaraan xal ay isku afartaan dad saaxiibo la isugu yeedhay dad kala fog baa la isugu yeedhay oo la doonaya dantuna ku khasbayso waqtiguna ku khasbayo inay si waaqici ah oo run ah u helaan xal ku gaaraan taas ayna saaran qof waliba hadadaaro hadalkana runta haddii aan laga sheegin murug buu galaa run hala isu sheego wixii la tabanaya si adag laga wada hadlo wixii la wada goostay ee lagu heshiiyana run ha laga dhigo hala rumeeyo taas baa inaga soo soconaa xagga yaga waxaan halkan lamid run wixii dhibaato aanu sheegno wixii dan inoo wada ma hadanta Soomaaliya qodas maanta Soomaali maxaa u dana qodobka u dana ee ka fursan weynayna waanu la nimid walaaladayna waxaan u sheegaynaa si walaaltinimo ah iyaguna waa soo kale waxaan diyaarnahay inaan dhageysano ra'yiga naga duwan kaayaga ka fog inaan dhageysano oo dulqaadkeeda yeelo oo rogrogdhaawaan u nimid idinkana saayis laga ka doonaynaa shalay arrintu waxay ahayd madaxweynayaashii waa shiray oo hadlay oo dhageysanay mas'uuliyadii waan soo wareejin guddiga wasaaradda loo soo wareejiyay anaa tilmaantayda waan nidhi halka war hal wada heshiiyo war wax la isla afkarto waa dhammayn maanta waxaa la soo eegayaa guddida farsamo ee arrinkan ku hadhay inay keento technical war maxay noqdaa خاصة بها إن ما أنت واحد ولا سوى فرصة وحاول وين التلاوين جران ما أنت لسه أفكر كره إنه هالكلام أفضل كل شيء كره أقول له نقول هالشيء كرهنا أذك أنا وحالي رضا معي إلى حالي ما ناكل الصحة نطلق قاضنا هالكلام كي قلنا إنه contribution كتر شركة إنه بوليسو أولو بوليسنو آد بان صوتين آد بان الله
waxaanoo daran warag shirka iyo ummadda ina sugaysaa maxaa lagu guulaysan karaa intee imika la isu dhawo laga heshiin karaa inteebaa adag maxaa la qaadi karaa marka idinkana waxaa dee nalabadun baa tiimbay la tahay dee xil baa idin saaran maanta waxaa ummadda dhowreysanayso dee halkaan idinkaan tugano halkaan wadi fadhina isaa iyo ilaahay idinkii tala wanaagsan tala suuban halkana waa meel iska barakaysanoo in badan baa guul lagu gaaraa anigu intaasaa naga dardaarana waana mahadsantiin